markii lagu xiray ramadaan baa meesha noogu soo galay xabsiga xoogaa dhowr waxaan nahay muslimiina meel baan ku wada afurnaa salaadaan ku tukanaa marka sariiraha saan isu saarsaaran oo xabsiga safan baa jira sariirta aniga aan ku jiifo dhinaceeda mid ah laba isa saaran mid hoos aan ku jiifay isna mid hoos ku jiifaa nin kale oo kuuriya marka ninkii galabtii markii ay casarkii tahay ayaan kitaabka quraankan soo qaataa sariirteeda korkeeda iskaga akhristaa casarka ilaa maqrib afurka laga gaarayo baan quraanka iska akhristaa ninkan uu arkaa quraanka marka akhrinayo waa gal kuuriyana wuxuu bilaabay galabtii dambe intuu soo qaato shukumaan ama tawal maxaa u taqaanaan ya tawal baa u taqaanaan shukumaan baa u taqaanaan waxa u taqaanaan kan markii la qubaysto la isku qallajiyo ya kaasuu intuu madaxa saa u saarto oo gab isku siiyo ya sida islaamku khoorsanaysa oo kale ayuu quraan ku dhageysanaya saasuu iyo dul fadhiya markaan quraanka akhrinayo saasuu isu saara ana quraan kor baan u akhrinaya haddaan joojiyo istaago maradu iska qaada maxaa dhacay maxaa u joojisay oo maxaa ka fahmaysaa waxaan akhrinayo ma fahmaya akhri warmajin baa ku jira oo ninku ka cuudinaya oo ka akhrinaya way jiraan jinku waa iska saaran yahay gaal moogtay gaal jin baa iska shaydaan baa iska saaran ya shaydaan waa iska saaran yahay oo waxa laga yaabaa quraankaasi ku jiro marka wuxuu yahay waryaa akhri haye waaye markaan wado maradiisu isa saari gab u dhageysan maalin walba saasuu sameeyaa dambaan waxaa erib niyo waxaan akhrinayo ma taqaanaa maya luqaddaan ku akhrinayo ma garanaysaa maya maxay tahay waa qur'aan baan ku iri waxaan akrinaya qur'aan weligaa ma maqash maya islaam ma maqash ha islaam waa maqlay tifiyada iyo journaalada meelaha ku arkay kitaabka islaamka wey diintooda hay oo luqadee wey waa luqa carabiya luqada carabiga ma taqaan ha carabtan lacagta iyo betrool kale soo ma luqa carabiya luqadooda luqadaas adigu ninkii saaxiib baan noqonay galab walba akhriya wuxuu dhahaa niyo anugu ma garanaayo wuxuu yahay luqaduu yahay iyo wuxuu yahay laakiin marka aad akhrinayso waxaan dareemaa raaxo waxaan dareemaa qabow madaxa tintiisa laga soo bilaabo ilaa ciribta anigoo dhan waxaad moodaa biyo barafa oo qabow in laygu shubo stresskii iyo fikirkii iyo wixii ihayay oo dhan qabow deganaan baan dareemaa bixasuli baan dareemaa marka ii wad niyo quraanka hay diidin adigu ninkii sidii aan u akhrinayn waxaan bilaabay wiilkaan isagu xataa nin daaci ma aha yani quraan iyo diin waxaas wax badan soo bartay xoogaadii si yartaayo dee waxay soomaalida ilaahay subxana wataala ugu galadeeyey badanaaba dee cunug walba dugsiga waa la geeyaa qur-aanka uu bartaa iyo higaad waxyaalaha ummadda islaamka ay ku fiicantay qur-aankii baan sidii ugu akhrin jiray buu yihi ninkii inaan u bilaabay inaan u sheego qur-aanku wuxuu yahay akhirku wuxuu yihi 20 cisho meelahaas markii aan meeshaa wada deganayn mise bil ramadaankii dhammaaday wuxuu ugu yiri inaan soo galan rabaa diintan see ku soo galan si aan waxaan macaankan si aan u helo niyo uu igu soo socdo bas waxaan ku yiri buu yiri soo qubaysaa ashhadu an laa ilaaha illa allah wa oranaysaa qubaysanaysaa sideeda u tukanaysaa waa dhamaatay haye diyaar baan ahay soo qubayso soo qubaysta warninka tahriibka nin buu islaaminayaa muujin ماشي إلهي نعمك سي النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فوحى لقى يابا مسلمين إنه سان أبدح جوجو أنت صوصنا كين يا هذا إنك أبدح جوجتان ولا جيسنا أنا نوقف إسلامين بعد ذلك صوتي سوي إسلام كاس أنت سو حدود ومري حاري ملاها نكاس أنا جوسو الدراي هذه إلهي خير كلام معي نكى وحير سوق بيسائل شهادة وقفتي وإسلامي
qur-aankii baan u bilaabay iyo higaadii iyo alif iyo baad faatixadaan u bilaabay wuxuu yihi faatixada markaan u akrinaayo wuxuu ku qortaa afkiisa kuuriyaanka ah afka chineska u aragteen iyo kuuriya iyo oo la xardhaayo sida loo xardha waxaasuu ku xardhadaa alxamdu lilaahi oo afkiisa alxamdu kor bay ku qoran tahay hoosna wuxuu ku xardhadaa afkiisa si uu u ilaaliyo nudqiga kelimadda alxamdu ya wuxuu ku qoraa afkiisa faatixada dhan buu saa ku qortay qul huwa allah akhriye qul acuudu birabbi الnaas qul acuudu birabbi اlfalaq akhriye sidaasoo kale ugu qortay buug dhan oo intuu qaatay buu wuxuu ku qoraya marka wuxuu yidhi maantoo dhan caawoo dhan wuxuu ku celcelinayaa faatixada waana dhegaysanayaa waxaan siiyey cajaladii baahnayn laga dhegaysanaya markaasuu wuu dhegaystaa waana qoraa waana akhriyaa maalintii dambe kun jeer buu ku celinaya caaw kun jeer buu ku celcelinayaa faatixada markii dambe anigu iga badiyey faatixadii cabdilbaasit buu ka dhegaysanayaa minshaawi buu ka dhegaysanaya anigu iga badiyaaba qul acuudu birabbi lfalaq qul acuudu birabbi nnaas mucaawadateenkii war adigu ninkii sidaa maalin walba saa suurad ugu waday shan yani boqoloo jeer mid walba ku celinaya oo perfect u keenay akhriskeedii salaaddii aan wada tukano maaragtay sheekhiisii baan ahayo agtayda xabsiga lagama soo dhowaan karo gaalo kaleeto iyo kuwo kaleeto oo dad badan mujrimiin ah ku jira halkaas qofkii iga soo dhawaada ya shaahiga caanaha biyaha waxaa alaabta ii keenay ya waa karaamada dacwada sooma wii khidmayna wuxuu leey macallinkayga agtiisa qofkii yimaada ilkaan ka ridaya agtiisa wuxuu usoo dhawaada ninkii markii aanu saa ku jirnay 2 bilood meesha ku wada jirnay cinwaankii baan ka qortay teleefonkii baan ka qortay maxaan kuu sheegay adresskii baan ka qortay waa la kaxeeyo isaga waa la dhoofiyey waa la mashaakil badan oo wuxuu yidhi niyo aniga aan kusoo nool waddankan 10 sanaan joogay sharci ma lahayn waa laysoo qabtay naagtii nin kale iska raacday markii aan la xiray xoolihii waa la tagtay ya makhaayid iyo waxbaan lahaa wixii way qaadatay xoolihii waa iga dhumeen naagtii waa iga tagtay xabsi baa lay geliyey sharci daraa lay dhoofinayaa waxaasoo dhan oo maskaxda hadda laakiin wuxuu yidhi hadda farxadda iyo nicmada iyo khayrka aan ku noolahay ma cabiri karo mana sheegi karo xataa awalna waxaan ku noolaa jaxiim iyo cadaab baan ku noolaa inaan dhibanayo oo kale maalin walba waa macaanka islaamka waa tii uu rabay nebigu alayh slat slam ninkaan inuu qalbigiisa geliyo laakiin ilaahay uma qadarin laakiin way saamaysay markay ugu badan tahay way saamaysay una aamusay shib buu yihi ninkii sidii ugu dhoofay waxaan ka xumahay buu yihi oo aan markuu sheekadii iga sheekeynayey aan ka qoomameeyaa waraaqdii iyo adreeskii baa iga lumay xabsigii ninkii meel aan ka raadiyo iyo meel aan u doono isna kuuriyaa laga tuuray waadi ya maxaad ka haysaa ninkii magaciisa un baan hayaa kim qisaan ka qoray markaan buuggayga sheekooyinka ya kim yaa arkay aan u bixiyey kim yaa arkay ya qofka kaatibka ah oo wax qora waxaa weeye sheekada isagu boqolaal qof u sheegay soomaali uga sheekeeyey si caadiya aniga laakiin markuu iiga sheekeeyey waxaan arkay qiso istaahisho in la qoro inay tahay marka waan qoray waana nashriyey mediyadana markii hore waan ku nashriyey kadibna buuggaan ku qoray waxaan ka wadaa marka sheekada qur-aanka kariimka ah oo aynu hayno nebigu alayh slat salaam wuxuu leeyahay kitaabkan akhrista oo badsada intaan dhulka laga qaadin akhri zamanka dhulka waa laga qaadaya hal xaraf dhulka ma awlay maaha musxaf hal xaraf dhulka ma lagama helay akhru zamanka waa la qaadi salaadana nebigu alayh slat salaam wuxuu leeyahay ku raaxaysta inta ay idinla taalo agtiina ay taalo iyadoo kana laga fahmayo akhri zamankana in la weynayo laakiin ama wax idin kala dhex galaan الصلاaةu khayru mawduucin marka qur'aanka iyo salaada waa waxa ugu wanaagsan oo istiqaamada iyo ku sugnaanta wadada ilaahay ugu fiican oo kugu sugan waaye labadaas dardaaran baan idin